soo dhawaada saaxiib yaal, soo dhawaada. soo dhawaada saaxiib yaal. saaxiib yaal, codka see waay horta. codka intayna arrintan aan rabnin aan idinkala hadalno ee ciwaanka aad soo aragteen ka hor, horta codka waa sida idinkoo aada u mahadsan. number 1 noo qora haddii codka maqalkiisu aada u fiican yahay. haddii uu liito eber noo qora idinkoo aada u mahadsan. walaalaha sharafta leh aan ku midownay wanaagga iyo walaaltinimada, kalgaceylka iyo saaxiibtinimada, damqashada iyo isku gurmashada aan ku midownay ee beejkan ku xiran, waxaa idinka codsanin haddaana maqashaan oo codka nadiif uu yahay inaa number 1 noo qortaan. saaxiibayaal, codka ma fiican yahay? aada u mahadsan tahay walaashay maryan. walaashay maryan indha yare xuseen, aada u mahadsan tahay sida quruxda badan aada noogu sheegtay in codkeena uu yahay mid la maqli karo oo aada u fiican. waa mahadsantihiin. sida aada u jeedaan waxaa ila socda wariye zakariye maxamuud timcadde oo ah wariye soomaaliyeed oo caawa dabcan aad ku aragteen mareegtiisii facebooka, gaar ahaan dhinaca beejka, qoraal loogu gafayo qof xildhibaan ah oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya, sidoo kale dumar ah. zakariye maxamuud timcadde ciwaankiisana laga soo dhex qoray. haddaba zakariye ayaa hadda ila fadhiya. maahir codka eber waayaa leedahay, dad qaarna halay noo soo qoraa. waa mahadsantihiin. zakariye waa kan. zakariye dad badan ayaa dabcan aniga isoo wacay oo idhahay war ninkii maxaa ku dhacay saaxiibka ahaa, sidee bay wax u jiraan, ciwaankiisii ma isagaa waxaan soo qoray. waana ogahay inaad magaalka ku maqneed oo aan isla wada joognin markii waxaan iisoo sheegayay. kadibna sidaa deg degaan kuusoo wacay. bal waxaadna sharaxaad naga siisaa waxaa dhacay, waxa macnihi waxaan ciwaankaaga lagu soo qoray iyo waxaa ka ogtahay. wamaadsan tahay adiga iyo saaxiibadii kale soo wacay ii sheegay in facebook pagekeyga lagu qoray waxyaaba aan aada u fiicneen. marka horta umaadsan yihiin sida wanaagsan ay la soo socodsiiyeen. marka labaad dabcan pagekeyga waxaa lagu qoray mid kale hadda liisoo sheegay iyadana sawir miya waxaas camal la sheegay. sawir iyo warbixin mataqaanaa laga qoray xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya niciima. dabcan niciimo man isku yaqaanaan umalaynaa dadka xogtaan qoray iyo aniga iyadan iskuma yaqaanaan, laakiin dadka jabsadayna hal iyo labo iyagana xogtooda waa haystaa oo waa ogaan doonaa. waxaa laga soo galay Malaysia. mar waxaa iisoo dhacday this was me iyo wasn't me. macnihii waxaa kugu xirnaa two way authenticationka oo koodka qofka maaragtay taleefonka yes or no ka dhehaysa. ha marka anuu mashquulsan oo bas soo raacaya this was me aan dhahay. xabaar maraan soo saarnaa kadibna wixii dhan hawadii ka bixeen oo mataqaanaa inaan facebookeyga caadiga isticmaalo mataqaanaa lagu yaacay bahalkeygii. facebookana ii furi waaye, pageka asagoo isku xirnaayeen ilaa hadda wuu maqan yahay. waxaa laga yaabaa dad whatsapp, inta badan dadka whatsappkeyga inta badan la soo xiriiray oo mahad celinaa marka hore whatsappka sida igu soo sheegeen. whatsappka iga soo waceen waxay ugu dhaheen niyo maxaa kugu dhacay, khilaaf maa jiro, isku dhac maa jiro. maybe ma aqaan qof mataqaanaa mas-uulina isku dhacno. waxaan weydiiyey maxaa dhacay, waxaa lagu dhahay noocaasa ciwaankaaga lagu soo qoray, sheeka noocana lagu soo qoray, maxaa waaye. si fiican. kadib waa raadiyey waa taa soo wacday aan ku dhahay niyo bal ii fiiri. asxaab kaloo saaxiibadeedaan wacay way la wadaageen sheekada. waa lagu daabacay sawir kale lasoo dhigay oo qaldan. waxaa laga yaabaa dad kale in laga caayo inta uusan gacanteeda soo gelin. waaya zakariye, dad badan oo kugu bartay faafinta wararka wanaagsan ayaa kuu garaabayay oo ciwaanka markaan arkay in badan oo kamida commentiyada aan aqriyay markay dad badan isoo waceen tiim kale wariyaalaba
oo ay leeyihiin waxaan kama suuroodo wariyaha Soomaaliyeed ee Zakariya la yiraahdo sidoo kale saaxiibka saan ma ku ogeyn maxaa isbedel soo marka dadka horta intii badneed ee ku taqaanay shakhsiyadaadii wanaagsan waxay markiiba dareemeen in ciwaankaaga la jabsaday oo caqabad ay ku haysto ilaa hadda aan la dagaalameyn xilligan la joogo ay noogu socoto processka marka ma adiga kaliya ciwaanka isticmaala mise waxaa jira shakhsiyaad kale oo aad adiga is leedahay ciwaanku way kula isticmaalaan ama xubinay ka yihiin sidaan ognahay beejka dad baa inta badan isla maaragtay isla qora beejkayga turkiga muqdisho ilaa inta asxaab badan ay la hayso wanaagsan yihiin inta badan waa iswacnay xogta waa isla wadaagnay way ii sheegeen anigana waa u sheegay waa isla wada wadaagnay hadda kulle waa u sheegay ayagana way ii sheegeen waa wada report gareynay waxaan ku dhahnay bal waa ka wada sugaynaa tiim badan haddana caawinayo dhalinyaro hindi joogtaana caawinayso tiimka meesha nagala soo galayna Malaysia waaye dabcan dadka Malaysia aan ku tuhmeyna xogtan ama jabsan kara bahalkaygana iyagana xogtooda waa haystaa tiim kale ee Turkiga jooga isku xiran yihiin Marwan iyo tiim kale oo saaxiibadii Turkiga jooga xogteeda waa hayaan iyagana tiim ka caawinaya kamid yihiin laakiin hal iyo labo saaxiibadeena qaar ee joogo halkaas la sheegay in dhaqdhaqaaqooda aad ugu fiican yahay dhanka Malaysia saaxiibo badan ku leeyihiin laga yaabo sheekooyinka u dambeeya aan ku qornay dad dhax martay xurguf yar ama saameyn yar xoog badan aan qornay dagaal ka keenay asalkooda reer Malaysia xogtooda iyagana waa haynaa oo kuma haysiin iyagana waxaan ku sameyn doonaa sida balanteena ahayd inaan daba galno aan ogaano haddii marka dadkaas ay ku yeeshaan lugta waxaan rajaynaynaa anagana inaan ka guuleysan doono saacado kadibna waxaan rajaynaynaa inaan soo ceshan doono qof walba oo laga caayo beejkayga intuu gacanta ka maqan yahay waxaan rajaynayaa inuu la soo xiriiri karo waxaan rajaynayaa inuusan qalad u fahmin qof walba oo laga caayo wax walba oo khaldan oo lagu sameeyana dabcan kulle hadda aniga ma ahan laakiin waan rajaynayaa inaan gacanta ku dhigo waayo Zakariya nin wari Soomaalida tahay waa ka raali gelisay maxaa u jeedinaysaa xildhibaanada Soomaaliyeed ciwaankaaga magaciisii lagu xadgudbay walow adigu aadan ahayn aadna uga damqatay runtii tan iyo intaas soo socotay oo xaafadda aad u soo socotayna ay aad ma aragtay kaaga muuqatay inaad maaragtay arrintaas aad uga xumaatay xaqiiqa aad iyo aad intii dadaal aan isku dayi karnana aan sameynay ilaa haddana aan wadno maxaa u jeedinaysaa runtii waxaa laga yaabaa qofka sheekada qora xataa inuusan isku aqoon aniga Niciimo sanatarada laga qoray sheekada aniga iyada walaal aan nahay wax xumaanayna nolosheena ma dhaxmarin waxaa ahayn dad walaal oo saaxiibo wax xumaanayna weligeedna ma dhaxmarin waxaa laga yaabaa sheekooyinka u dambeeyay iyada anagana dhaxmaray in ciwaankii laga arkay ama dad aniga xumaan u qabo ama iyada xumaan u qabo inay arrintan sameeyaan dad kale ila soo xiriiro waxaa jiro luuqa ciwaankayga dad badan oo waxaa jira sheekooyin ama sawirro qaldan loo isticmaalo loo adeegsado loo diray ama sheekooyin kale loo qoray qof walba oo laga caay messengerka iyo gudihiisa ama qof walba oo wax qaldan lala wadaagay waxaan rajeynayaa inuu isagana soo wicin qaarkood whatsappkayga hayay oo mahadsan yihiin xildhibaanadana runtii waa sanadaradeeda aniga imatashaa waxaa laga yaabaa sheekada ugu dambeysay xitaa haddii arkaan in ku xumeen iyada ay ku xumeenaya inay u sameeyaan laakiin waa qof aan weligeed wax xumaan dhexmarin waa walaasheeda iyo ma yaqaanaan laakiin iyaga waa mahadsan yihiin laga yaabo in iyaga qofka saas sameeyey in la ahaa inuu ahaa qof la soo dadka hadda ku daawanaya in badan oo kamid oo kugu xiranaa jira beejkaaga marka laga tago midkan ayaga maxay tahay fariinta aad rabto inaad la wadaagto maxay tahay fariinta aad u sheegaysa ayagana qof walba horta inuu taxadir way fiican tahay maanta keliya wuxuu ahaa qofkii labaad aan laga jabsaday dabcan saaxiibkeen foodhaadhi sidoo kale saaka laga jabsaday way ugu imaaday waxaan rajeynaa inaan anigii asagaba soo wada ceshan doono runtii qof walba oo laga caayo messengerkayga ama dhibaato loogu geysto intuu gacanta ka maqan yahay beejkayga waxaan leeyahay waa mahadsantihiin wax xumaan walba halkaas ka dhacdana caawa shaqo kuma lihi laakiin waan rajeynaya inaan soo ceshan doono tiim badan oo IT ay caawinayo oo jooga Hindiya annaga intaa shaqadii ka wadnaa teeda kale waxaa jiro waxyaabo kale oo dad kale ila soo wadaag hadda oo aad wax xun aan maybe qof oo mataqaana wari uusan sameyn karin lagu sameeyo laakiin waxaan rajeynaa inaan soo ceshan doono saaxiibadeeda ama qof walba oo ila dhashay oo halkaas caawa xumaan loogu geystay waxaan leeyahay karaal noqdo Nicimana waa walaasheeda sanataradeeda si qaas ah waxaan leeyahay si qaas u la xiriiraya taqaana karaal noqdo halkaas ka soo gaaray dad badan oo saas amal laga caay baalkii hoosana waa lii sheegay way la soo xiriireen waxaan leeyahay ma santiin laakiin waan rajeynaa inaan soo ceshan doono aad iyo aad saaxiibayaasha sharafta leh u mahadsan yihiin dadaalka hadda wuu socdaa weerarkan wuxuu ku imaan karaa dhowr qaab oo kala duwan sida Zakariya uu sheegay in ma aragtay la isku dayo iyo in ma aragtay sidoo kale taba kuwa xayeysiin dadku soo dira oo dhahaaya ma aragtay dhaqaale iyo waxbaan ku siinaynaa
dabadeedna markay linki inta kuu soo diraan qofka markuu click siiyo ama gujiyo saameynta noocaas ay ku imaato. marka Zakariya aad iyo aad u mahadsan tahay xaqiiqatan inaad ka soo gaarsiisay waliba wax yar gudahood fariintan aad kala wadaagto. waxaa suuragal waxay muujinaysaa in saaxiibo badan ay kugu xiran yihiin oo wanaag kugu bartay ay kula soo wadaayeen WhatsApp-ka. saaxiibkiin Zakariya fariintiisa u dambaysa marka idin soo gudbinayna. Zakariya maxaa leedahay ugu dambeyn, maxaa ku khatimaysaa? waxaan leeyahay qof walba oo halkan laga caayay ama qof walba oo xataa luuqa dhibaato loogu geysto waxaan leeyahay waa ka raali gelinayaa. waxaan rajeynayaa inaan soo ceshan doono qof walba oo dhibaato loogu geysto. waxaan rajeynayaa in aniga dib ula xiriiri doono qof walba oo dhib loogu geysto in aan wici doono. haddana sidii keliya qofka dhibka loogu geysto wax laga qoray nicmo waaye. nicmana aniga ila dhalatay laakiin dadka way iska yaqaanaan. waxaan rajeynayaa marka cid walba oo dhibaato loogu geysto intuu gacanteeda ka maqan yahay inaan ahayn aniga qof xun dhibaatadaas loogu baranin, waxyaabaha qaar xumaanta aan liiga baranin. oo mahadsantihiin saaxiibadeeda. waan rajeynayaa inaan dib u soo ceshan doono. rag badan oo saaxiibadii ay caawinayo iyagana way ku mahadsan yihiin. waan rajeynayaa in daqiiqada, saacado, habeen ama maalin gacanteeda uu soo gali doono. haddii gacanteeda uu soo gali doono isagana hawada ka saari doona. waa mahadsantihiin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصوغ قلب صاحبكيو ووري Zakariya دي لصوغ الرقالة فوداري لولغي إلهي بالهنا موتي حالنا قطاتوغا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.